dhammaan baad ku channelka kulmiye technology course waa course-yada HTML and CSS casharku waa casharkii labaad. maanta waxaan qaadanaynaa heading ka hor inta aanan qaadin heading component waxaan rabaa horta inaan soo degsano Visual Studio Code. Visual Studio Code ani waa haystaa, marka adiga haddii aadan haysan fadlan la soo deg. haddii aadan fahansanin qaabka loola soo dego comment iigu dhaaf, igana asina muuqaal ayaan ka sameynaa qaabka loola soo degto, balse waa kana aan waa iigu juriyaa. waa maxay sababta aan Node++ aan ugu tegayno sababta aan ugu tegayno Node? waa kana Node tutorialkii hore kan ayaan isticmaalayna. waa editorkan wuxuu kusoo degaa laptop uu kusoo degaa, balse editorkan ayaa ah editor aad iyo aad ugu awood badan editorkaas. marka waxaa markasta fiican inaan kan isticmaalno, marka kan ayaan aniga isticmaalaya. okay, asiga ayaan soo furaya. okay, waa kana haddii uu qaabkan kugu soo kaco ambi kale qaab kaloo waxyar ka duwan haddii kugu soo kaco dhib ma leh. markasta waxaad riixaysaa file marka aad riixdaa kadib waxaa ku dhufanaysaa new file. waxaan rabnaa inaan file cusub aan abuurno. file hadda waan abuuraya, marka waxaa leedahay control s aad riixaysaa ambi kale meeshan ayaa waxaa ka riixaysaa save. kadib wuxuu ku weydiinayaa meel alaale iyo meesha aad ku saafaysid. waxaa leeyahay waxaa igu saaftaa desktopka. waxaan ka dhigayaa cashirkii labaad. typekan waxaan ka dhigayaa .html. kadib qaybtan ayaan tegaynaa, waxaan saaraynaa all files, maxaa yeele waxaan rabnaa dhammaan all files. kadibna save. okay, cashirkii labaad. tutorialkii hore waxaa ogeedaynaa marka ugu horeyso aan dhahaynay waxaan qoraynaa horta doctype qaabkan ayaan dhahaynay, kadib html. kadib ayaan waxaan furaynay halaan hore oo soo sharxay. haddii aadan fahansanin fadlan ku laabo tutorialkii hore. kan waa html-ka asiga ayaa xiray sidaa u jeediin, waana sababta aan halkan aan ku doortay. kadib waxaan furnay head. kadib headka fiiri asiga ayaa xiray. kadib waxaan dooranay title. kadib title ka xira isla markii asiga ayaa xiray. waxaan leeyahay ani waa tijaabo. okay, kadibna waxaan furanay body halaan hore oo soo sharxay, sidaa darteed ayaan u boobsiinayaa. soo bandhig muhiimaduna sidaa ujeedin halaan hore oo soo sharxay, balse sidaa ujeedin hadda kan editorkan Visual Studio Code wuxuu dhigayaa mid la arki karo haddii xataa oo la arkayo inuu kalaro gooniya na siiyo. okay, halaan hadda aan qornay sababta kale ku fiican waxyaalahan hadda aan qornay waqti badan naga galay. waxaan sameyn karnaa inaan keliya aan isticmaalno one-cast line. waxaa riixaysaa shifty number 1 aad riixaysaa calaamadaas exclamation mark kadibna enter ayaa leedahay. si ujeediin markii aan enter aadho muxuu sii dhammaan koodkan oo dhan ayuu sii anigoonan intaan qoran. doctype waa kana html. kadib kan language waaye waxaan waa ku tegaynaa dhib ma lahan. halaan iyagana hadda waa iska tiri karnaa, balse yes waa iska tiri karnaa. intaan ayaa tiraa halaan iyagana waa ku tegaynaa mid taagaas. sida ujeedin waa kaasa waa isla midkii, balse aniga wax ma qoran. so that's why sababta aan ku doortay. marka casharkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay hidden component. hidden waxaa loo isticmaalaa horta waa kana h1. waxaa jiro 6 xabo. h1 waa kan ugu weyn gutigood, waxaana h1 la isticmaalaa mar alaale iyo markii aad rabto ciwaano dhammaan h1 h2 h3 h4 h5 h6 waxaa la isticmaalaa mar alaale iyo markii aad rabto inaad ciwaan aad qorto. okay, waxaa leeyahay ciwaankii koobaad.
okay kan waa h1 kadib kutigooda ayaan koobiyeysanaa control hale control c kadib hoos ayaa taga control v kadib control v oo baaste control v ayaa riixoya haddii aad rabtana san waa dhigi kartaa baastii waa isku mid ani shortcut ayaan isticmaaloya kadib waa iska boobsiinaya kan waa h1 intaa waxaa ka dhigayaa h2 qaybtan kale ayaa imaanaya asna waxaa ka dhigaya h2 intaa ayaa imaanaya asigana waxaa ka dhigaya h3 intaa ayaa imaanaya iyadan waxaa ka dhigaya h3 intaa ayaa imaanaya asigana waxaa ka dhigaya h4 ilaa 6 waa wadeena intaa imaan waxaa ka dhigaya h4 intaa ayaa imaanaya iyadan waxaa ka dhigaya h5 intaa ayaa imaanaya asigana waxaa ka dhigaya h5 kan waa h1 waa open tag kan waa close tag h2 waa intay ka furme intayna ka xirantaa h3 intay ka furantaa intayna ka xirantaa qaybtan waa h4 open tag waaye close tag oo h4 kan waa kana open tag oo h4 na waa kana open tag oo h1 meeshay ka furmato waa kaas meeshay ka xirmato h5 na waa kana ciwaankii shanaad okay kuwaana waa sahayaa afaraad saddexaad lamaad okay koobaad okay lixaad bas ay dhiman control v ciwaankii lixaad intaa waxaa ka dhigaa iyagana h6 qaybtan waa h6 iyadana sidoo kale h6 okay waxaan rajeynaynaa si toos ah u arkaysiin si nadiif ah waa soo dhaweey waxaa leeyahay save ambi kale intaa tagi kartaa kadib waxaad dhigi kartaa save waa isku meeshii failkan waxaan ku seefnay banaanka marka waxaan tegayaa banaanka waa kana casharkii labaad double click ambi kale laba mar ayaa click ku leeyahay ambi kale open hataa waa dhigi kartaa waa kaasa waa isku meeshii marka wuuna soo furmaya sidaa ujeediin waa kana wuu noo soo kacay kana inta keeno waa kana sidaa ujeediin wuu noo soo kacay ciwaankii koowaad h1 waa kana h2 ciwaankii labaad waa kana h3 ciwaankii saddexaad waa kana h4 ciwaankii afaraad waa kaas h5 ciwaankii shanaad waa kaas h6 waa kan asin ciwaankii lixaad sidaa ujeediin waxaa ugu weyn h1 ugu weyn waxaana ugu yar h6 waxaana la isticmaalaa h-yadan markii aad ciwaan aad qoraysid keliya markaas ayaa la isticmaalaa mar kalena waa isticmaali kartaa balse shuruucda htmlojisa waxay tahay markii ciwaan aad qoraysid inaad isticmaashid h1 videoga intaas ayuu nugeega muuqaalka like saar channelka subscribe saar mahadsanid